lafta gareen oo amray in lasoo qabto Robo madaxiisa oo lacag la duldhigay iyo ciidanka koonfur galbeed oo bilaabay baadigoobkiisa liiska naxiyay dad badan oo soo baxay iyo siyaasiyiin kale oo bartilmaameed u ah xukuumadda lafta gareen waa galwareedii warbixin xasaasi ah cadada lacagada ee lagu raadinayo Robo magacyada siyaasiyiin caan oo bartilmaameed ahaa iyo siyaasiyiinta ka tirsan dawladda ayaa idin haynay sheegaray warbixinta muuqaalka dhac oo YouTube-kan galwareed TV subscribe soo saara وهجاج أنكم بالله مدحينها كونفور قلبي عبد العزيز حسن محمد الله تقرنا أيه حقه وصان هنا وحي المام إنه أمر إن مختار ربو على أبو منصور وسنديقنا ذا كونفور قلبي عكسه لقي كرنس لمر كان وياهي مامل كبرت المامد وزير كوزارة ورفافنت مامل كونفور قلبي إلياس وربهنت له هذا يا شيخ إني قنصيهين لفت جرين يسحب ذيس مختار ربو inuu yahay argagixiso isla markaana aan liiska argagixisada wali laga saarno ugu jiro maamulka koonfur galbeed arintaasi ayaa cadeysay sida uu lafta gareen ugu diyaar garoobayo inuu ka hortago in qorshe ay dawladda Soomaaliya doonayso lagu wado in maamulka koonfur galbeed lagu geeyo Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur oo yahay mid aan ka hirgeli doonin deegaanada maamulkaasi wasiir Ilyas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in marnaba maamulka koonfur galbeed uusan ogolaan doonin in markaasi Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur la geeyo magaalada Baydhabo sidoo kalena uu maamulka bartilmaameed u yahay oo meesha lagu arko iyo cidii soo qabataba ay maamulku lacag cadadeeda la bartilmaameed siin doonaan wasiirka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda liiska madow ee argagixisada aan Mukhtaar Rabo laga saarin oo maamulka koonfur galbeed ay u yaqaanaan hogaamiye al-shabaab soo maamulay isla markaana ka soo mid noqday kooxaha argagixisada ee sida weyn Soomaaliya dagaalka ugu jira ilaa iyo hadda Mukhtaar Rabo uusan daahirmin oo dambiile uu ka yahay agtooda wasiir Ilyas ayaa sheegay in ay wadaan qorshe Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur lacag lagu duldhigayo madaxiisa iyadoo dawladda Mareykanka ay 3 milyan oo dollar hore u duldhigtay madaxa Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur intii uu ka tirsanaa kooxda kuna sugnaa deegaanada koonfur galbeed ra'iisul wasaare waa markaasi wasiir Ilyas Cali Xasan ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed uu hogaaminayo markaasi madaxweyne Cabdilcaziz Xasan Maxamed lafta gareen ay wadaan qorshayaal kala duwan oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta saaxiibka dowla ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaasi ka howlan sidii maamulka koonfur galbeed caqabad looga dhexdhigan lahaa ay u diyaar garoobayaan inay markaasi talaabo ka qaadaan arintaasi uu sheegay inay tahay qorshe maamulka u degsan oo la doonayo in looga hortago in kooxaha argagixisada ay isku balaariyaan deegaanada wasiir Ilyas ayaa sheegay in Mukhtaar Rabo uu yahay gacan ku dhigile dad Soomaaliyeed baabi'iyay isla markaana aysan jirin meel uu dambigaasi looga cafiyay maxkamadda aan la soo hortaagan wuxuu sheegay inuu ahaa dambiile u xiran dawladii hore laakiin dawladdan sabab ay xabsiga uga soo deeday iyo sabab wasiir looga dhigay intaba maamulka koonfur galbeed uusan la socon Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur ayaa laga dhigay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo xabsiga laga sii daayay dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa ka soo xirtay magaalada Baydhabo iyadoo muddo dheer xabsi lagu hayay Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn in markaasi ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn sababta xabsiga looga sii daayay sidoo kale asagoo al-shabaab ka tirsan ayaa looga laakiin ma jirto meel liiska argagixisada looga saaray Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa Mukhtaar Rabo u magacaabay markaasi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta arintaas oo hadalhayn ballaaran dhalisay Mukhtaar Rabo oo warbaahinta la hadlay dhawaan ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay in loo magacaabay wasiir iyo sidoo kale fariimo kale oo uu diray dhawaan Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka sheegay halkaasi in markaasi mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed uu dagaal ku qaadan isla markaana ay xabsiga u taxaabeen shirkan ka dhacay magaalada Muqdisho ee Mukhtaar Rabo uu ka hadlay ayaa markaasi looga hadlay arrimo muhiim ah kulanka ayaa waxa isugu yimid hormuudka siyaasadda koonfur galbeed oo ay ka mid yihiin Shariif Xasan Maxamed Cusmaan Jawaari Maxamed Aadan Fargeeti Ilyas Cali Xasan iyo siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda koonfur galbeed hase yeeshee shakhsiga ka qaybgalkiisa ay hadalaynta xoogan abuurtay ayaa ahaa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur oo dhawaan laga soo daayay xabsi uu ku jiray 3 sano iyo bar kadibna lagu abaalmariyay wasiir
shirkan ayaa ahaa kii labaad oo ay yeesheen siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo kii ugu horreeyey oo uu ka qaybgalay mukhtaar robow oo xirnaa shirkoodii hore looga dhawaaqay isbahaysi ka dhana laftagareen. shirka ayaa lagu sheegay munaasabad soo dhaweyn ah oo loo sameeyey robow, hase yeeshee warbaahinta ayaa fahamsan in kulankan uu ahaa mid fariin iyo cudud siyaasadeed loogu dirayo laftagareen ka hor doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. doorashada ayaa dhacaysa bisha December, waxaana jira tuhna in laftagareen isku dayi doono inuu xukunka ku dhego ama qabto doorasho ku shubasho. laftagareen ayaa hadda dareemaya go'doon siyaasadeed, waxaana madaxweyne Farmaajo markaasi gacan ka siiyay in uu magaalada Baydhabo madaxweyne ka noqdo. warbaahinta ayaa xog ku heshay in madaxweynaha koonfur galbeed uu markaasi doonayo inuu isbahaysi la sameysto dowladda Itoobiya, sidoo kalena ay xiriir wanaagsan uusan la yeelan fila Soomaaliya oo dhowaan markaasi qaaday tallaabo lagu colaadinayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed laftagareen. wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed Ilyas ayaa markaasi mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee maamulka koonfur galbeed ay ka leeyihiin in mukhtaar robow aan loo aqoonsan wasiir ay tahay in la ilaaliyo sharafta dhiigga Soomaaliyeed, iyadoo aanay taasi mas-uul ka noqon karin maamulka koonfur galbeed in qof iska soo dhiibay urur argagixiso ah oo markaasi si weyn dunidu ay u aqoonsan tahay inuu yahay hoggaan argagixisada la soo shaqeeyay. in wasiir laga dhigo isla markiiba la dilacsiiyay aysan ahayn wax markaasi ka turjumaya dowladnimada Soomaaliya, isla markaana shacabka Soomaaliyeed dareenkoodu uusan aqbali karin arrintaasi. warbixino kala duwan ayaa laga qoray magacaabida laftagareen. maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay sidoo kale in wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah siyaasiyiin si weyn ula dagaashan laftagareen ay duldhigeen ganaaxyo lacageed, iyadoo shacabka deegaanadaas loo ballan qaaday iyo ciidamada koonfur galbeed haddii ay soo qabtaan in lacag la siin doono. arrintan ayaa markaasi abuurtay hadalhayn ballaaran oo ku saabsan sida loo maareynayo xaaladaha ka jira deegaanada koonfur galbeed, iyadoo laftagareen uu dhowaan tegay magaalada Jigjiga, halkaasi oo kulan kula soo qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee maamulkaasi. wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Soomaaliya Mukhtaar Robow Cali Abu Mansour ayaa hore u soo noqday hogaankii hore ururka Al-Shabaab, sidoo kale afhayeenay urur ka soo noqday dowladda madaxweyne Farmaajo ee December ka soo xigtay magaalada Baydhabo, iyadoo xabsi uu ku jiray ayna hayday hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. haddii laftagareen uu isku dayo tallaabadana in markaasi Mukhtaar Robow Cali Abu Mansour lagu diro liiska argagixisada ee aan laga saarinba, waxay abuuri kartaa in dagaalka ka dhexeeya koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu sii ballaarto, isla markaana uu gaaro heer aan waxba laga qaban karin. shaqariyo xogaan qabta falan gurigooda garabtidiina tan iyo kulansi dambana nabadgeliyo.